والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولله غالي إيجاهن سلامة سلامك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية waxaan jeclahay halka inaan idin kala wadaago laba qiso iyo xogaa baraarujin ah oo ku saabsan hooyo al-um. walaalkayga ama walaashayga qaaliga ah, walaalahayga qaaliga ah, haddaad daawanaysid videogan hooyada ay ku nooshahay, fadlan ka duceyso hooyada oo baari u noqo, oo laxadadan haysatid hadda noloshaan isma siisan, berita kaa tegi kartaa, hadda kaa tegi kartaa, waqti kasta kaa tegi kartaa. saacadda taaganta ka duceyso hooyada. waxa laga yaabaa inaad dib dambe u arkin, inay kaa tagtaa laga yaabaa, gurigeedii rasmiga inay aadaa laga yaabaa. walaalkayga qaaliga ogsoonow, mid kasta oo hooyadiis ay u guurtay gurigeeda dhabta ahaa, ha jiro 70, ha jiro 10, ha jiro 5, ha jiro 40, hal si ayaa u wada dareemaynaa. hooyo guriga hadday ka baxdo waa wada dareemaynaa. walaalkeena walaalahayga qaaliga ah waxaynu soo bartay hooyo hadalka. wax walba oo maanta nicmo aan heesano waxa ku heesanaa fadliga hooyadeen. maalinta intiqaasho gurigeeda dhabta u guurto, mid dhawaaqaya wuxuu leeyahay dhageyso, tii fadligeeda aan kugu naxariisan jirnay way tagtay, fal camal aan fadligiisa kugu naxariisano. walaalkayga qaaliga ah, maantay haddii hooyada weli ay ku nooshahay, wallaahi billaahi tallaahi ladayka nicma, waxaad haysataa nicmo. qof bili-aadan oo maanta qof bili-aadan nicmada u haysta midda ugu weynaa haysataa. haddii maanta hooyada ay ku nooshahay oo calaa qayd alxayaati ay saaran tahay oo dunida dusheeda ay ku kor socoto, ka duceyso hooyada. waxaa dhacday qiso uu ka sheekeynayo sheekh, wiil dhalinyaro ah iyo hooyadiisa isqabteen oo muddo adiga hadalkii doodii waa badatay. wiilkii wuxuu go'aansaday inuu guriga ka tago. markuu ka maqnaa muddo 3 sano oo hooyadii maalin kasto ay raadinayso, ee dadka weydiinaysa lambarkiisii, ee asagii sugayso, ee banaanka u soo baxayso, ee meesha baabuurta ka baxday iyo meesha laga baxo iyo kulli tagayso, ee asaga sugaysa, raadinayso, rajeynayso inuu u soo noqdo. waxaa dhacday wiilkii 3 sano kadib wuxuu go'aansaday inuu soo noqdo meeshii ay hooyadii uu ku nooleed, ku soo barbaaray inuu u noqdo. wuxuu imaaday dadkii oo soo dhaweynayo oo dhahayo soo noqo, kaalay imow, marxabeenayo, soo noqotay, soo dhawow. markaasaa waxaa la dhahay hooyadaa way geeriyootay. hooyada Allah u naxariisto. maamada Allah u naxariistay waxay sameysay inta ay geeriyoonin waxay qortay waraaqad. markay sii daciifaysay way dareentay, waraaqadii qortay meel u gelisay. wiilkii uu imaaday asoo ordaayo guriga soo galay. mise wuxuu dhahay maanta markuu albaabka furay, maalintii hore uu cararay, dhageyso, markuu albaabka furay wuxuu albaabka soo galin wuxuu dareemay diiqad. waxaan dareemuu leeyahay soodkii hooyadii la'aantiis gurigan inaan galaayo, codkii hooyo oo ila hadlaynin inaan galaayo. gurigan soo galay, codkii hooyo ma lahan, hooyo ma dhex joogto. waa orday qolkeygan isku qaado dhah. arrinta cajiibka ka dhacday meeshaan fiiray. qolkiisii uu galay. qolkiisii markuu galay, wax walba markuu ka tagayay asaga way isku dhaxdaadsanaayeen, way rafaadsanaayeen. dharkiisii dharkii uu ka tagay waa loo hagaajiyay, waa la dhaqay, sariirta loo kor saaray, la laalaabay, qaar loo xareeyay, qaarka kaleeto uu ku seexan jiray sariirta loo kor saaray, sugaysa maalin inuu imaado.
markaas ayuu intuu dhaqaaqay dharkiisaas u kala qaqaaday. markaas meel miis ah wuxuu kasoo helay waraaqad hooyadiisii u qortay. wiilkayga Usaama waxay tiri waa tagtay waan ku raadiyay in badan, lambarkaaga raadiyay, maalinta iga tagtay ayaa farxad iigu dambeysay. maalinta iga tagtay ani farxad iigu dambeysay. intaas maalin walba dadka ku weydiin jiray, dharkaaga waa kuu dhaqay, qolkaaga waa hagaajiyay. hooyo haddaa imaato oo aad ii weysid, hooyo iska kii cafi. iyadoo waxaana ka galabsanay oo asaga uu ka tagay ee soo rabaysay ee wanaagiisa ka talinayso yuu ka dhaqaaqay. kadibna saasay leedahay, walaalahayga maanta heesto nimco aan dareensaneen. waxaan idinku waaninayaa inaad nimcada aa haysatiin maanta ka faa'iidaysatiin. waa taas tii koowaad. tii labaad waatuu aan igu dhacday. waxaan jiray da'da 11 sano. waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo aan haysanin. aabihiis uu dhintay asoo 6 bilood jiro, wax aabba ah aan haysanin oo celceliya. markaas 6 bilood aabba oo jiro, 6 bilood anoo jiro ayuu aabba geeriyooday. 6 bilood anoo jiro ayuu aabahey geeriyooday. kadib hooyaday way isoo korisay. markaan 11 sano gaaray way iheen weysay oo banooni iyo dhalinyaranimo ayaan bilaabay inaan banooni aado dugsi gambiyo. hooyo way i waday guri adeerkayga geysay. waxay dhahday ninkaan soo weyn aaday wiil aabihiisa hayn karo, aniga ma hayn karo. waxaa kaa codsanayaa ninkaaneed inaad gacan ku qabato. adeerkii hayo ayuu dhahay guriga joog. bacda isbuuc waxaa dhacday, hal isbuuc markay kasoo wareegtay hooyo iyadoo socotay dugsiga ugu imaatay. waxay u tiri Imraan, hooyo mana nacday, guriga maa nacday, hooyo ma nacdo. xitaan ee waday oo i geystay gurigaas. hooyo guriga maa nacday, maya hooyo guriga kuma nicin ee adaa wada meeshii geysay. hooyo soo noqo. hooyooyinkeen wax kasta oo aan sameynay noogu dulqaadanayaan. haddaan xun nahay, haddaan fiican nahay, haddaan daroogeysta haddaan nahay kii kaleeto mid xun, mid walba oo xun hooyadiis kama quusato. qofka keliya ay kaa quusanaynin waa hooyo, laakiin qof kastoo dunida dusheeda dul saar kaa quusana. walaalkayga maanta haddaa haysato hooyada ay ku nooshaa, waxaa ka codsanaya inaad ka faa'iidaysatid nimcada aa haysatid. waa fursad qof kasta uu haysanin maanta dunida dusheeda saar. aan u duceyno hooyooyinkeena haddii nool yihiin iyo haddii geeriyoodeen. aan ka duceysano intii ay nool yihiin. laakiin maanta kaa geeriyooto, ma baari baa u ahayd mise caasiyaa ku ahayd, adi maa kala sheegi karta. waxaa waaye may kuu duceysay, may ku habaartay. haddaa fursad haystaa, ka reebo ducada oo kasbo ducadeeda adduunya aakhira ku liibaanaysa. midda aan naga quusan, middana jecel, midda wax walbo aan ahnay aan ku nahay iyada darteed. haddii iyada ahaan lahayn annaga waxba ahaan lahayn. ilaahay ka suko waxaa nahay, waxaa ku nahay hooyooyinka. walaalkayga qaaliga, hooyooyinkeena aan ka duceysano. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.